Lo yelo ay fogsanayo wabadane dayaci wakaso bilane bishari wabilghayr الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمي وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. Soomaalida iyo Yuhuudda waa qaybtii kale ee aan rabno inaan maaragtay gadaal waqti dambe aan tagno nabiyullaahi ciise calayhi salaam dhalashadiisii ka hor inaan tagno. waayahay haddaba Yuhuudda iyo Soomaalidii markaa soo dhex degtay, Yuhuuddii soo dhex degtay Soomaaliya qaab kastaba ha ku yimaadeen, waxay noqdeen qaarkood waxaa dhacay in lees dhexgalo oo lees guursado. way jirtaa, wax la qarin karana maaha. tan ugu dhow waxaan ka soo qaadnay tii miniligii labaad imaatinkiisii iyo tii boqorkii halgamaagii weynaa allah u naxariistay nasiib buundo xilligiisii cabdow bin bareeg iyo salaax bin bareeg aan ka soo qaadanay. cabdow waa magac carbeed, laakiin ben iyo bareeg waa laba magac oo ay isticmaalaan yuhuudda ay isticmaalaan weeyaan, waa anagii soo sheegnay. iyo magaalada xataa muqdisho xaafadan inay maaragtay oo bareeg cabdow in loogu magac daray bareeg cabdow. marka bareegkan waa bareegii jilib ku lahaa beeraha faraha badan, hantida faraha badan, kadibna xaafadan baa maaragtay loogu magac daray bareeg cabdow. marka bareeg cabdow iska yidhahdaan dadka reer muqdisho, laakiin marka taariikhdeedii aan baaray magaca siduu ku baxay bareeg cabdow sidaa bay ahayd. haddaba gadaal aanu noqono marka xilligii nabiyullaahi muuse calayhi salaam aan tagno. marka a'immada islaamka waxay isku waafaqsan yihiin in maaragtay nabiyullaahi muuse calayhi salaam oo midabkiisu ahaa midabka maariinka uu ahaa, oo sidaa innaga oo kale ahaa oo midabka maariinka uu watay. waayo midabka xagga iska dhig. marka nabiyullaahi muuse calayhi salaam waxaa la sheegaa hooyadiisa in la odhan jiray zobira, waa sida ay qoraan nimankan taariikhyahanada. zobira marka zobira bal aan eegno maaragtay aan magaca markaa maxaa barbar dhigi karnaa oo u dhowaan karo oo u eg. waayo intaynaan dhigin waxaad ogaataa magaca ama maaragtay magaca dadka ama magaca magaalooyinka ama magaca waxyaabaha la isticmaalo kolka ay jiraan muddo dheer ay jiraan way dhalan rogmaan, way isbedelaan oo qaab kale ayay u samaysmaan. waa nagii tusaale usoo qaadanay guntiinada halka laga xidho gadaal xidhka ahayd sidii u socotay gadaal xidhkii wuxuu isku bedelay gar xidh. gar la xidhayo ma jirto. magacyada sidaasi lamida way bedelmaan. sida maalan qolo la yidhaahdo gudmane waxa uu odhan jiray good morning siduu u dhihi jiray ayaa waxaa soo socda gudmane soo socda. gudmane waa good morningkii ayaa bedelmay. sidaasi lamid ah haddaba zobira markii dhalan rogantay may noqotay doobira mise doobira ahaydoo zobira ayagaa u qortay. waa labadaa unbaa maaragtay kulliga opshanada hadda socda ay noqdeen oo taariikhyahanada ay soo baareen. doobira haddii la yidhaahdo waa magac Soomaali ah ayuu noqonayaa doobira haddii la yidhaahdo. marka zobira waxay u dhowdahay markaa doobira ayay u dhowdahay, aada ugu dhowdahay taariikh ahaan. haddaba milanka laysku milmay waa beri hore waxay yidhaahdaan. haddaba doobira reer galbeedka waxay yidhaahdaan waxay u dhalatay reer Etoobiya ayay ahayd bay yidhaahdaan. waxa weeyaan Soomaaliya wax ay ku magacaabaanba way iska yar tahay, laakiinse magacii ayaa diidaya in magac Etoobiyaan maaha doobira ma baxsato Etoobiya ma baxsato qowmiyadaha kala duwan ee Etoobiya dega. doobira magac la yidhaahdo
ma baxsadaan aan ka ahayn qowmiyadda soomaalida aan ka ahayn marka taariikhdan fog muqdisho markaad timaadid aad tagtid berbere tagtid sidaas la mid ah zaylac tagtid aad tagtid meesha la yidhaahdo buuraha la yidhaahdo mabla aad tagtid mabla waxa weeyaan buuraha dheer ee tixan obokh halka la yidhaahdo ilaa iyo tajura isku xidha ayaa la yidhaahdaa mabla loo yaqaanaa buurahaasi sidaas la mid ah buurtan ama dixdan weyn ee magaalada randa laftigeedu taariikhdeedu way fog tahay waxaa la sheegaa dad asalkoodu inuu ahaa yahuud ahaa inay ku dhex milan yihiin nimanka dankeliga ama cafarta inay ku dhex milan yihiin ayaa la sheegaa sidaas lamida meelo fara badan oo dadkan maaragtay dega inay maaragtay ku dhex milan yihiin haddaba yahuuddan ma ahan yahuud duulaanku ugu timid maysan ahayn qaabab kala duwan ayay ku yimideen qaarkood ganacsiga ku yimideen qaarkood maaragtay waa anaga kasoo sheekaynay nasiib buunda qaabkii ay u joogeen iyo ujeeddadii ay lahaayeen sidaas lamida qaarna waa tii laga qabsaday lagu qabsaday dagaalkii lala dagaalamayay miniligii labaad kolkii uu yimid soomaaliya uu yimid uu degay magaalada la yidhaahdo balcad la yidhaahdo uu degay dadkii deegaanka kolkay la dagaalameen waxaa qaarna waa la dilay qaarna waa la qabsaday kuwii la qabsaday haddaba noocyada kala duwan ee maaragtay qowmiyadaha etoobiyaanka ayay ka mid ahaayeen haddaba qowmiyadahaasi kala duwan falaashaha qolada loo yaqaano way ku jireen oo yahuudda ah maadaama yahuuddaasi weli way joogaan waa la qarameeyey laakiin waa la soomaaliyeeyey waayo reerihii markaas qabsaday ayay maaragtay ka mid yihiinoo ay ku milmeen waa awowayaashoodii ayaa halkan maaragtay joogay oo ku dhashay cashirkan waxaan kusoo koobaynaa intaa yaraan kusoo koobaynaa haddii alla yidhaa si su-aalihiinii yaa maaragtay iskugu habayna aanu idinkaga soo warcelino weydiinihii aadna soo weydiiseen in sha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu